iyadoo maanta gashay maalintii afraad ee ololaha doorashooyinka Somaliland isla markaasna ahayd maalintii labaad ee ololaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Somaliland ee UCD ayaa waxa maanta murashaxiinta xisbigaasi uga qayb gali doona doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanku waxay fagaaraha beerta xuriyadda ee magaalada Cerigaba ku soo bandhigeen cududooda taageero ay ku leeyihiin magaalada Cerigaba ee xarunta gobolka Sanaag ana fagaaraha beerta xuriyadda ee magaalada Cerigaba taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCD kala hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda xisbigaasi iyo waliba murashaxiinta xisbiga uga qayb gali doona doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka xisbiga UCD oo maantiin labaad ee u dambeysay banaanbaxooda cududooda ku muujinaya mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin sidaa sharafta leh ee quruxda badan ee cududiina u muujiseen ee taageerayaashiina xildhibaanadiina u taageerteen xisbigiina u taageerteen aad iyo aad mar saddexaad iyo mar afraadba waxaad leeyahay waa idin hambaliyaynayaa ninbaa heesoo wuxuu yidhi sida xaaba guritaan la iskama xantoobsado annaga xildhibaanadoodu waa xildhibaano xula waa xildhibaano sharaf badan waa xildhibaano karaamo badan waa xildhibaano aad iyo aad u qiimo badan maanta waxa la dhigay wacdarahaana waxa ka dhigay gobolka Sanaag xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa wardafoor buu ku yaalaa maanta waxaan u malaynayaa cidna caad kama saarna awoodda iyo cududda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee guud ahaan gobolka Sanaag waxaan leenahay sida taageerayaasha sharafta badan ee aad u muujiseen cududiina sida taageeradiina u muujiseen ayaanu doonaynaa 31 kamayna in codkiina u muujisaan haddii aad u dhigo insha Allah taageerayaasha waxaan u sheegayaa in maanta ay tahay maalin weyn maanta ay tahay nin waliba ninkuu jeclaa oo uu dib jiray oo uu oomanaa oo ku ciilqabay inuu maanta fartiisa ku soo saarayo codkiisa maanta yaana idinka baylihin taageerayaasha reer Cerigaba gobolka Sanaag heer degmo iyo heer gobolba sidii aynu ula soo bixi lahayn xildhibaano tayo leh oo wacan waxaan leeyahay maalinta bisha 31 ay gaadhay waxaad siinaysaan codkiina qof walba waxaad bixinaysaa codkaaga xisbigii hore kulmiye meesha uu ka baxay waxa soo galay waa UCD baa soo galay kulmiye meesha uu ka baxay UCD baa soo galay waa aragtaa dawladii aynu dooranay inaanay waxba qabanin inaanay meel la tagin madaxweynihii dalka u sareeyay shalay wuxuu bilaabay campaign madaxweynenimadii uu iska dhigay halka intuu dhigay ayuu noqday gudoomiyihii xisbiga maanta xisbigan xitaa madaxdiisa ma kala naqaan calaana keentay waxaanu leenahay guulaysta xisbigu ha guulaysto calaamadaydu waa diigga halkaa ka muuqda waa soo dhawaynaysaan waxaan ahay musharaxa keliya aan baasboor sidan ee dalka jooga ee weliba insha allahu biidnillaahi tacaala aan dalka iyo dadkana wax la qabayo ee ugu tegayso ee garanayso ee la joogayso ee wax la cunayso ee wax la cabbayso ee soo kicinayso isagoo hurdaayaan ahay anigu iyo kooxdayda mid waxaanu ballan qaadaynaa inaynu horumarka gobolkan dhexda u xidhanno anigu astaanta shabeelka waxaan soo qaatay hamoodina inay dadka cunayso shabeelku wuxuu cunayaa kulmiyuu cunayaa aan idinku celiye magacaygu waa Umar Maxamuud Ismaaciil Dubbe astaanteedu waa fure wax walba qofka markay ku xirayeen fure u baahan yihiin furihii baan idin wada reer Sanaagow waxaan dhammaan taageerayaasha degmada Cerigaba ka codsanayaa sida nambarkaygu u horeeyo 101 u yahay in codkayguna uu hormood ka noqdo astaantaydu waxay weeyaan buugga xisbigani wuxuu jaanis u haystaa ama nasiib u yeeshay laba astaamood oo kala ah qalinka iyo buugga diiraanahay 20 sanadood baan ka shaqaynaya samafalka waxaa halkan jooga adoontii aan waxbaray halkan waxaa jooga mashaariicda horumarada gobolka ka qabtay waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka reer Sanaag iyagoo isku duuban inay codkay siiyaan xildhibaanada waxaan ka rajaynayaa UCD ka sharaxan insha Allah way soo wada baxayaan xisbiga kulmiye codka ma hayo inaga hayna codka inaga hay Adnan Cabdirashiid Cali telefishinka Kalsan.